waan soo dhaweynaynaa halka waxa ugu timaadeen kuliyadda ciidanka imika waxa laga bilaabo wax badan baa isbedelaya xeer baa la idin qaybin doonaa xeerka anshaxa shaqo qaran oo daabacan oo la siin doonaa ka waa ku dhaqmaysaana wuxuu khuseeyaa qaabka ugu noolaanaysaan halkan waxa idinka mamnuuca waxa la idin ogol yahay waxyaalahaas oo dhan midna waa mid xeer iska jiro waxa weeyaan xeerka ciidankuna waa la idinku maamulayaa inta halkan ku jirtaan macallimiintiina saraakiisha aragtaan raggaasoo dhammadooda saraakiil waa ragga macallimiinta idin noqon doona saasay idinku dhaqayaan waxa ugu muhiimsan halkan waxa weeyaan aad u timaadeen ama la idin keenay waxa weeyaan kow anshaxa in kor loo qaado disciplineka waxa la yidhaha dhalinyaro ahaydeen iskuullaha ku jirteen jaamacadaha gasheen xor ba ahaydeen waa la idin koolkoolinayay markaa aqaladii joogteen gabdhaha walaalaatiin iyo hooyo waxay idin lahaayeen inankii waxaa ma loo dhigay inankiiba iminka laga bilaabo weel baa lagu dhiibayaa weelkaaga adaa dhaqanaya sariirtaada adaa geejisanaya oo ilaashanaya dharkaaga adaa maydhanaya hawshii lagu qabanayay hooyo iyo gabdhaha walaalaha idin qabanayeen idinka qabsanaya waa qayb nolosha ka mid ah tababar weeye siidhiba halka laga afuufaya macallinka taliyahaaga horinta uu ka garaacaya garoonka dhexdiisa halkaas aad ugu imanaysaa adoo la rabay dhowr daqiiqo gudahood inaad ku soo labisato kabahaaga iyo waxaaga shaarka orod adoo ordaya xiriireeto oo u timaado waxaasoo dhan waxa weeyaan waa discipline tababar ismaqal kala dambayn ayaa la idin barayaa waxaa la idinka rabaa in la idin majeerto la yidhaha rag wanaagsan bay ahayn raggii dafcaddaas saddexaad ee berigaa ku jiray waxaas raadkaasi ka tegeen in la yidhaahdo noloshu waa intaasun berita hogaamiyayaal baa noqon doontaan barhkiin baa saraakiil noqon kara barhkiin baa saraakiil civil noqon karo dowladeed ganacsataa idinku jirta nooc walba waa noqon doontaan discibliinkii iyo noloshii halkaa kasii baranayseen bay halkan ka mid tahay waan idin haweynahay inaad noqonaysaan dafcaddii ugu wanaagsanayd dafcaddiina saddexaad oo maanta idinkuugu soo hormarteen intiina imika halkan maraysaa oo gobolka togdheera oo tiradaa filaya inay 42 meelaha tahay waxaa la idin kala qaybin doonaa 4 hurimood 4 hurimood 10kiiba hurin bay ka mid ahaan doonaan gobollada kalena way idinku soo biiri doonaan hurimahaas 4 hurimood baa guud ahaan la noqon doonaa muhiimad waxa weeyaan inaad tartanteen aad intaasoo kun oo arday aad ka soo dhex baxdeen aad qalinkiina halkaa ku timaadeen iminkana waxaa la doonayaa inaad firfircoonidiinna iyo raganimadiinna iyo kartidiinna iyo akhlaaqdiinna inaad ku joogtaan haddana sirta ku jirta shaqo qaran waxa weeyaan in la mideeyo dhallinyarada Soomaaliland gobolkay doonaan baa ka yimaadaan ama barana ka yimaado ama saylac ka yimaado ama burca ka yimaado ama meel kale ka yimaado in la mideeyo inay si akhlaaq wanaagsan ay ku wada joogaan inay qolo waliba soo contribute garayso waxa wanaagsan wixii xun ee uu qofku og yahay inuu ka qaldan yahay inaan ummadda dhex keenin inuu discipline ka ilaashado weeyaan waxaan ku soo gabagabeynaa hadii alla yiraahdo in cibaadadana lagu wanaagsanaado oo masaajidkiiba halkana isbitaalkiiba halkana maali jimicsiga oo dhan baa idin diyaara in muddadaasi in hawshaasi laga soo baxo ilaahay baa mahad leh allah ina soo waafajiyay maanta inaan nimaadno xarunta caabiska ee shaqo qaran annagoo nabadgelyo qabna caafimaad qabna innagu hore baynu soo dardaaranay xalayna waynu soo dardaaranay maantana waynu soo dardaaranay maantana agaasimaha iyo sarkaalka xarunta dardaarankeedii siiyeen waad maqlayseen insha Allah waxaan rajeynayaa sidii laydinku yaqaanay ama laydinku yaqaanay reer Togdheer reer Burco ee wanaagsanada labadii dafcadood idinka horeeyay ee sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta runtii ay maxay tahay soo hooyeen inaad maanta hadii lahaydmo aad soo hoyn doontaan mudana agaasime halkan waxaan ku wareejinaynaa 48 bay tiradooda ahayd 6 baa habsaamay 42 ayaa maxay tahay
maraya halkan nasaaka ama nagala wareegaysaan galabta ilaahay baana mahadle aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa